عليكم ورحمة الله وبركاته وشانل تقوى سوماليا شانل إيو قيبتي برنامج كدينيga ahay oo labaad iyo Ramadaan ki labaad Ramadaan mubaarak channelka subscribe like share samee commentigana hoos ku reeb bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا channel كينا تقوى سوماليا channel maanta iyo video cusub haduu ilaahay yiraaho videoga maanta waxaa ka hadli doonaa haduu ilaahay yiraaho sidoo uu u guursaday nabiy allah ismaaciil calayhi salaam labada xaas iyo sababta keento inuu guursado xaas labaad waxaas dhan aan ka wada hadli doonaa insha allah qofka subscribe channelka saar subscribe saar la wadaag asxaabtaada wax diin ahaa wadaani hees iyo music iyo film niimo wado diinaa nii wada dadka khayrka jecel insha allah inaa faafisiina nii rajaynaa sidee oo usoo gasho horta ko waxaa ka leelaa carabta meeshii wax ay joogeen sayida haajar iyo ismaaciil calayhim assalaam markay meesha kasoo butaacday amba kasoo baxay biyaha zamzamka waxaa imaadeen shimbiro badana imaadeen markaasaa yani qabiilad jurhum la dhahayo xilligaasi aragtay yani shimbirahan meeshay ku degayaan kolley biyaa jirto markaasi markay meesha ay imaadeen ee arkeen inay meesha biyo jirto fa waxay ka codsadeen sayida haajar iyo cunugeeda inay meesha ay degaan way u ogolaatay markaasoo nabiyullah ismaaciil calayhi salaam oo wuxuu bartay luqadda carabiga markay dhimatay sayida haajar calayhi salaam markay dhimatay kadib oo wuxuu guursaday ismaaciil calayhi salaam oo guursaday markaasoo adiga muddo kadib maalin maalmaha kamid waxaa soo ziyaartay nabiyullah ibraahim calayhi salaam igaarkiisa oo raba inuu soo ziyaarto markaasoo wiilkiisa oo waayay markaasoo wuxuu albaabka ka furtay xaaskiisa ismaaciil xaaskiisa albaabka ka furtay markaasoo wuxuu weydiiyey sidee waa noloshiin oo dhahay markaasay shib dhehday markaasay waxay dhehday shar ku jirnaa rafaada ku jirnaa timir iyo biyaa cabnaa aawa ninkaaga oo dhaha waxay dhahday ninkeygu maqan yani irsaqoo noo raadiyay markaasoo wuxuu dhahay ibraahim calayhi salaam haddoo soo noqdo ismaaciil waxa u sheegtay inay igu salaantid waxaana dhehdaa albaabka iska bedel markaas ismaaciil markuu imaado wuxuu dareemay inuu guriga qof imaado markaasoo dhan qof maa noo imaada maanta markaas waxay dhahday haa ninaa noo imaada ninkii u tilmaamtay sidoo ahaa markaasoo wuxuu dhahay haa aabahey waa ninka wax oo wasiyad amba wax oo nasteexanba wax oo kuu sheega ma jiro markaas waxay dhahday haa wuu ku salaamay wiilka yani igu salaamoo dhahay ee waxaa bedeshaa albaabka bedel markaasoo wuxuu dhahay aabahey wuxuu igu amray inuu ku furo ee bax ehelkaaga u tag waa ku furay adiga wax yar kadib haddana wuxuu guursaday ismaaciil calayhi salaam xaas labaad oo guursaday markuu xaaska labaad guursaday adiga muddo dheer kadib waxaa imaaday ibraahim calayhi salaam imaaday guriga markaasoo wuxuu yani albaabkii waxaa ka furtay xaaskii markaasay xaaski waxay dhahay soo deg kaale imaaw yani kasoo deg yani markaasi kaale gudaha soo gal ina biyo kusii wax markaas wuxuu dhahay maya aawan ismaaciil markaas waxay dhahday waa baxiyay irsaqoo noo doonay markaasoo wuxuu dhahay haye ciishadina see waay markaasay dhahday axsan nolol ku jirnaa nolosha ugu qurux badneed ku jirnaa markaasoo wuxuu dhahay maxaa cunteen waxay dhahday waxaa cunaa hilib iyo caano iyo laban cabnaa markaasoo wuxuu dhahay ilaahu ugu barakee markaasoo wuxuu dhahay ismaaciil haddoo yimaado waxaa u dhahdaa igu salaan eena albaabkaaga cisho u dheh marka ismaaciil markuu soo noqday wuxuu dareemay baadana inuu qof oo guriga imaado markaas wuxuu dhahay qof ma guriga imaaday markaas waxay dhahday haa ninaa imaado saan markaas waxay dhahay haa ninkan aabahee waa muxuu ku dhahay muxuu ku sheegay wuxuu dhahday igu salaam wiilka igu salaam ee albaabkaaga cisho oo ku dhahay wallahu a'lam zawjada labaad oo sayidina ismaaciil calayhi salaam awlaad aad u badan ee u dhashay zawjada koowaad laakiin wax ma u dhalin marka qisadan aad ay u gaaban tahay laakiin maxaa ka faa'iidayna cibro aad u weyn ku jirto waxaa ka faa'iidayna horta ko ina cunuga yani ismaaciil calayhi salaam sidoo aabihiisa baari ugu ahay maca inuu mala nooleen adooga mala nooleen ismaaciil yani ismaaciil gooniyo ku noolaa adoogana gooniyo ku noolaa laakiin saasay tahay aabihiis wuxuu dhah woo yeelaa yani baarinimada hadalka waalidkaaga inaa mar walba yeeshid ku jirto koow ta labaad ka faa'iidi doona waxaa waaye guriga asraartiisa inaa la bixin gurigaaga waxa ka dhex dhacaayo maanta waxaa cuntay maanta waxaa samaysay maanta waxaa yeeshay
dhan inaa la ogaanin mar walba afkaaga waxaa ku haysad waxay khayr ah sida hadda aan u aragna naagta koowaad oo Ismaaciil calayhi salaam wax shar ah sheegtay yani baahiyana dishay wax ma cunno wax ma yeelno timir iyo biyo ku joognaa ay dhahdeen nolosheed ay waxay ka sheegtay wax xun maca in iida Ibraahim calayhi salaam ka seenin fa qof gariib ah waxay u sheegtay nolosha gurigooda ka dhex dhacay فناقت لبعضنا أو جرسة سيدنا إسماعيل عليه السلام وحده هذا جوريين وحاكو جرت يعني خير عناه جوريين نلال في عنا كجرناه هنا بإعانة عناه الحمد لله كنا مع إن قف كان غريب وأها إذا حتى مكسينين فأذيك جوري جاجا صرت جوري كجرا مرول بإنا ألالة الدريشة داس إنه كبحين جوري جاج وحك نحدع قف غريب دن أوشيجين هذا إيه كاجا داس أكتين لكن هذا إيه saaxiibtada oo maanta ku soo gaxwa cabsaha gurigaaga maanta waxa ka dhaxdhaca ninkaaga wuxuu duruuftiisa iyo ninkaaga wuxuu sameeyay waxaas dad inta u tagaa ku soo sheeg waxaas dhan adiga ku liidayaan hadhooti aakhiradan adaa loo xisaabtama ugu muhiimsanna waxa waa inaad guursatid qofka ugu saalixsan yani ma ahan maanta hebelaad jeclaaday asoo balwad lahaa jeclaad asoo saan la jeclaad waxa laga yaabaa inay markaa guursado kadib oo iska dago marka iska guursana ma ahan waxa jira niman xun jira maanta guriyooda sirtooda naagtooda sida u taala banaanka ku shaacaba ay ka xataa nimanka xataa qaar niman xun jira fa naagaha xataa qaar waxa jira naaga xun ma ahan naagaha kaliyood inay xun yihiin amba niman kaliyood inay xun yihiin labadood dad xun iyo dad fiican ba way jiraan fa mar walba waxa laga rabaa inaad guursato ninka diinta ugu badan maanta daabaratid cali oo diintiisa caad iska tahay waxa laga yaabaa Axmed inuu salaadiisa iyo sunnooyin badan oo ku daro fakaasa ku anfacayo oo Ilaahay mar walba ugu dhow fa yani hatta dumarka hatta Faaduma oo mesela diinteeda iyada haafku waxa ka fiican Xaliimo oo diinteeda aad iyo aad ugu adago sunnooyinka ka wada tageen fa wax mar walba waxa lagu duceysaa qof saalix ah inaad guursatid iska guursana looma guursado marka videogeena intaas oo gaabaya maanta insha Allah taala dhamaantiin waan jeclaa channelka subscribe saara mar walba subscribe saara sayna waa daal subscribe saara afar wanaagsan waan jeclaa dhamaantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kuma hasantaa daawashada quruxda badan jazakallahu khair sida hore ugu socdo channelka ka ilaalin subscribe like share assalamu alaykum